dhacda markay dhacdo ciidanka biliiska mid baa waajib loogu leeyahay hawshaa maxaa ka qabateen waxaan leeyahay inta ciidanka biliisku waajibaadkooda gudanayo waxaan u soo jeedinayaa bulshada reer Soomaaliland iyo cid kasta oo arrintan khusayso inaanay baarista ka hor dhicin oo aanay waxyaalo nabadgelyada khatar ku ah ama dadkoo la kicinayo aanay ku kicin ciidanka biliiska waxa la waa naftood horeeyaa shacabka reer Soomaaliland ay ku kalsoon yihiin oo u darban yihiin oo ay la shaqeeyaan laakiin waxa leeyahay waa nin muraad low nabadgelyada dalka khatar ha gelinin ha sheegin waxaan jirin waxa weeye waa inaad ka warsugtaa ciidanka booliiska ee amniga gacanta ku haya iyo baarista kiisaska booliisku sidaan hore ku sheegay waxay booliisku gacanta ku soo dhigeen eedeysane Khaliif Axmed Cali Cawaale kaasoo lagu eedeeyay inuu u geystay inuu u hanjabay dhibane Maxamed Sadiiq Cabdullaahi oo loo yaqaan Dhamme intaan farku dhicin ka hor baarista booliiska ay wadeen waxaa naga soo ifaxay oo booliisku gacanta ku soo dhigeen Cabdikariin Cabdullaahi Ismaaciil Rigax oo isla lala xiriirinayo inuu faldambeedkaas lu kulaha isaguna waan soo qabanay wuxuu leeyahay labadaba kiiskooda waa la baar si mugla loo baarayaa waxaana si degdeg loo horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeeladaha dawladda